الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة sida walaalku tilmaamay darsigu wuxuu ku saabsanaan doonaa qasru al-amal rajada ama yadidiiladoo la soo gaabiyo haddaan si kale u nidhaahnana waxa weeyaan aakhiro oo loo diyaar garoobo oo qofku hadduu rajadiisu tuulul amal u israa wax badan baad noolaan doontaa insha allah camal kasta dib u dhigi doonaa xagga damaad ka hagaagi doontaa buu ku fakaraya laakiin qofku hadduu nolosha si kooban u arko hadduu xaqiiqada inaanu berriba noolaan karin haddii rabbi qoro uu fahmo waxay noqonaysaa maantuu haystaa inuu maanta ka faa'iidaysto haddaba mawduucan si aynu uga warranno waxaynu u baahannahay xaqaa'iq dhowra inaynu isla garanno dhowr shay ka koowaad waa xaqiiqatu linsaan bini aadamka iyo qaabka alla u abuuray bini aadamku wuxuu dunida u joogaa in la itixaamo xorriyad baa ilaahay siiyey waxaana loo abuuray qaab uu wax dooran karo laakiin doorashada uu dooranaya waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo iraada go-aan asal waxa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya cabdillaahi bnu mascuud uu ka warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigaa wuxuu jeexay buu yidhi khad murabbaca square khada fargeesla buu sameeyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam bartanku haddana khad kale ka dhex saaray fargeeska khadkii ahaa ayuu khad kale ka dhex saaray khadkaa dhexe xariijimuu u yeelay waxa uu ku tilmaamay markaas waxaan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashiisii waa geeridii oo aanu dhaafaynin khadkan ka dhex baxayna waa amalki iyo rajada geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa bini aadamku adduunka wuxuu ka baxaa isagoo weli qabyo arrimuhu ka yihiin isagoo weli wuxuu qorsheeyey ay qabyo tahay buu baxaa waxa uu kaloo nebigu xariijimaa yaryara kale ka baxaya ku tilmaamay inay tahay acraadu dunya mashaakilka adduun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mashkilad la'aanaynin